kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa 10 qodob aad ka qoomamayn doonto noloshaada haddii aanad ka faa'iidaysan inta aad awooddooda leedahay. Number 1 waxaad ka qoomamayn doontaa inaanad waxba kaydsan dakhligii ku soo galay haba yaraadee. Number 2 waxaad ka qoomamayn doontaa inaanad ka tegin shaqadii aanad jeclayn intii aad ka tegi karaysay kadibna ay noqotay mid noloshaada ku tiirsan tahay. Tusaale ahaan waxaad ka shaqayn jirtay shaqo aanad jeclayn adoo aan xaasla ahayn, shaqadana waad ka tegi karaysay intii aanad xaaska lahayn, balse xaasle ayaad noqotay adoo sidii uga shaqeeya kamana tegi kartid oo noloshii reerkaaga ayaa ku tiirsan. taasaa keenaysa inaad ka qoomamayso inaad ka tegi weyday intii aad fursadda haysatay. Number 3 waxaad ka qoomamayn doontaa inaanad wakhtigaagii waxbarashada si fiican wax u baran ama inaad wakhtigaaga ku bixisay waxa aan faa'iido kuugu jirin. Haddaba wakhtigaa ku dhaafayna waad ka qoomamayn doontaa mar ay ahaataba haddii aanad hore uga soo faa'iidaysan, balse haddii aad hore uga soo faa'iidaysatay waxaa laga yaabaa inaad maanta midhihiisii guranayso. Number 4 waxaad ka qoomamayn doontaa waxyaabihii aad dib u dhigi jirtay in aad barato ama inaad bilowdo maadaama ay ku dhaafisay dib u dhigiddii aad dib u dhigi jirtay. waana arrin ay dad badani sameeyaan laakiin halistiisa leh. Number 5 waxaad ka qoomamayn doontaa inaad rumaysatay waxyaabo badan oo been ah adoon baadhitaan iyo hubin ku samaynin. qodobkani dad badan ayuu ku dhacaa oo ay noloshooda qaybo muhiim ah ku baaba'daa. bulshadeennuna waxay ku mahmaahdaa hubsiima hal baa la siistaa. waxaa kale oo ay ku mahmaahdaa ka fiirso intaanad falin, waxayna ku tusayaan halista ka dambaysa weynideeda. Number 6 waxaad ka qoomamayn doontaa inaad fikrado qaldan qaadatay in badan oo lagaala taliyeyna aad diiday oo aad ku dhagsanayd kadibna ay iyaga dartood kuu dhaafeen waxyaabo fiican oo noloshaada ku anfici lahaa haddii aad fikradaha qaldan ka tegi lahayd. Number 7 waxaad ka qoomamayn doontaa wakhtiyo barakaysan oo aad dayacday sida salaadaha iyo rabadaanta iyo xilliyada kale aadka u qiimaha badan. Number 8 waxaad ka qoomamayn doontaa xidhiidho badan oo aad ku bixisay wakhti badan oo noloshaada ka mid ah isla markaana ugu dambayntii fashil ku soo dhammaaday. Number 9 waxaad ka qoomamayn doontaa talooyin iyo fursado qaaliya oo ku soo maray balse aad ka faa'iidaysan weyday kadibna aad qiimahooda dib ka ogaatay. Number 10 waxaad ka qoomamayn doontaa mar kasta oo aad isdhiibtay adigoo ku dhowaa guushii aad inta badan u soo sabraysay wakhtiga badanna aad ku bixisay. guushuna waa adigoo xilliga dhibku ku haysto cagaha dhulka ku sii yarahaya. haddaba qodobadan iyo kuwa la midkaa waxaynu ka qaadanaynaa sidii aynu isaga ilaalin lahayn waxyaabaha murugada iyo qoomamaynta leh ee nolosheenna saamaynta ku yeelanaya. waxa kale oo aynu ka qaadanaynaa inaynu ku dadaallo sidii aynu uga soo kaban lahayn qodobadan wixii nolosheenna soo maray kuwa aanina soo marinna aynu isaga ilaalin lahayn. haddaba kommentiga noogu reeb qodobka noloshaada ku soo maray islamarkaana saamaynta kugu yeeshay. fiidiyogana like saar, channelkana subscribe saar si aanay marnaba kuu dhaafin xogaha cajiibka ah ee aan ku soo gudbiyo barteenna Maamuusa Media.